بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودواada walaalaha sharafta leh meel walba dunida ugu nooshihiin. Magacaygu waa Saadiya Ismaan Cali. Ku soo dhawaada janabkayga Saadi Sidsoop. Maanta waxaan idin wadaa saliid oo bixinaysa baalasha indhaha baalashooda eyelashes kamaalaha. Marka gabdho badan ay soo dalbadeen waxay dhaheen make up ay hagaajiyaan ay dadka u mariyaan wayna maxay tahay YouTube kana way soo gudiyaan. Marka waxay dhaheen eyelash timaha lagu dul qabanayay laga deeriyo marka wax dabiici oo eyelashes bixin karo nala soo share garay. marka waxaan rabaa insha Allah intii karaamkayga inaan maxay tahay insha Allah aan la share garay hadii la yiraahdo. marka waxaan sameeynaa saliid bixin karta eyelashkaas ma sha Allah aan wax dhiban aan geysanaynin oo qofka si dabiici u bixin karo qofkii rabo inuu bixiyo. marka insha Allah daawasho wacan. marka meeshaan waxaan ku haysanaa castor oil fenugreek oil waa saliidda xulbada iyo castor oil. castorna waa garanaysiin avocado oil vitamin E lemon grass essential oil. sababta aan isticmaali doono idin sheegi doono insha Allah. marka aan recipe-geena isku darsano castor oil oo 50 gram ah. castor oil oo 50 gram ah. waxaan kaloo haystaa avocado oil oo 30 gram ah. avocado oil oo 30 gram ah. waxaan kaloo haystaa saliidda xulbada 10 gram. xulbo af Soomaali waa umaleena. marka waa insha Allah sawirkeeda meeshaan soo saari doona qofkii aan garanaynin. marka waxa ay dhimaan vitamin E oo hadda ku dari doono iyo essential oil hadda ku dara. marka waxaan isku soo kululaynaa warm aan soo dhiga insha Allah zaid u karkarnaa laakiin soo warm gareynaya. marka yar saliidda warm la ka dhigaynaa in si fiican isku dhex gasho bisaarnaa warm aad u karkarnayno. maskarada baasheeda lagu isticmaali karaa bahaladan ayagoo darsiina waa la gadaa. waxaa kaloo isticmaali kartaa maskara bahalay kaaga dhamaatay inta dhaqatin nadiifin waa ku shub kartaa. marka waxaan rabaa maskara in lagu marsado muhiim waaye sababtoo ah si kale loo mari kara ma laha qofka saliidda indhaha ka galaysa. marka maskarada fiican qofka inuu ku marsado oo mar walba daily uu marsado habeenkii ku seexanayo kale uu mariyo wax yar uu ku massage gareeyo uu mariyo. marka insha Allah anagana waxaan rajeynaynaa in dadka ay ka faa'iideystaan. marka waa yara cabiraya mar raba inay 40 degree dhaafto. diyaar waa inay yara kulaato zaid kulaato lama rabo waan bas inay noqoto qandac ama fardeer qof soo yaqaano 40 degree camal inay imaado. vitamin E 1% ku dari kartaa intaana miisaamaysa total weight ka haysatid hal aw qaybinaysa boqol wixii ka soo baxa inta ku noqota ku dhufanaysa intaas kala ku dari kartaa. marka amaliye xisaabiye leh waa xisaabiye u baahantay. أنا هقدر عشان نبعد عمل لأنه تست يا كربا أحيرا أنا أن تجابين ويواديك هيدا كبرايا. إن شاء الله. marka maadaama aan saliidda xulbada ku darnay essential oil ku darsan kartaa lavender lemon grass laba dhibcood ayaan ku daraa. marka qofkiina xulbada ay anaga saliidda xulbada ku darsanaa laakiin same time lagama carfiyo. shan dhibcood ama ku dari kartaa 4 dhibcood 5 dhibcood adiga markaas raadin xulbada shirkeeda ama urkeeda wuu yara baabay. ما شاء الله lemon
lemon grass ay kasoo carfaayo lemon grass waa bahal sida oo basal baarta camal u eg laakiin caraftiisa naanta camal ay tahay subxaanallah liin ma u eka laakiin sida liinta ayuu carfaayaa waana bahal yar oo basal baarta ayuu u shabahaa ama basal cagaarta waxa la dhaho marka aragtida sawirkiisa meesha soo saari doona insha allah essential oilskiisa timaha waa lagu daraa aad u fiican yahay kareemada waa lagu darsadaa marka waxyaabo badan ayuu galaa insha allah marka insha allah waa package gareynayna waa video aad u sahlan marka waxaan rabaa in laga faa'iideysto qofka eyelasheski uu si dabiici ah oo insha allah uu ku dheereyn karo tricks badan jiro oo dadka make up maryaab iga badiyo oo lagu dheereeyo laakiin aad loogu deeriyo intii la dul saaro ayagana waxay ku dhahayaan eyelash la-aan make up kama nuuraayo oo miska gabdho badan weydiiyo miska dhaaf kartiin miyaa make up inaa marsatiin ama adigoo timahaas aan kor saarin oo indhaha lagu dhejinayo marka qof walba si uu fahmay qof walba wuxuu dhahay yacni ma suurtagaleyso oo sababtoo ah qurux ma kusoo baxaya marka waa kasaa saliida eyelash lagu soo bixiyo adduunka dhan laga isticmaalaa google gareeya raadiya youtube-ka xataa ka baara websaydo badan lagu gadaa marka wax jira waayo adduunka laga isticmaalo marka avocado oil aan ku darnay oo qiimahay leedahay adinka alooda socotiin ama qof walba ogaan karo castor oil oo aad u qiimo badan waxaan ku darnay xulbada saliida oo ayadana si fiican timaha inay soo bixiso aad ugu fiican waxaan ku darnay vitamin E waxaan ku darnay essential oil oo nasdhahnay ama xulbada ay ka dhex caraftaa oo aan ku baabi'inaynay marka insha allah waa saliid aad u qiimo badan eyelash loo isticmaalaa sida maskarada camal loo marsanaya qofkii rabo oo jecel inuu aad u dheereeyo marka insha allah waxaan rajeyn doonaa in si dabiici loo isticmaalo qofkii rabo inuu soo dheeraadaanba uu soo bixiyo oo wax shaki ku jiro ama diintiisa qalqal gelinayo ama naftiisa dhib u keenayo uuna isticmaalin marka sii sheer gareeya insha allah si walaaladiin u baahan ay uga faa'iidaystaan tan intii aan kulmeyno cashir kale oo aad u qiimo badan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu